سل التاريخ يعطيك الجواب ويفتح من قصور المجد بابا عن الإسلام عن حكم بعدل ومجد ساق للنصر الركابا وعن خلق رفيع لا يضاهى وعن من يرتجي فيه الثوابا بطولات تسطر كيف كانوا وسودا يعتلوا الصرح المهابا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta 13aad ee barnaamijka halgankii daraawiishta. ويفتح من قصور المجد بابا عن الإسلام عن حكم بعدل ومجد. qaybtii hore waxay inoo joogtay daraawiish oo qalcado badan ka dhisatay meelo istaraatiiji ah. qaybtanna waxaan ku sii milicsan doonnaa ingiriiska iyo gumaysigii uu ku hayay bulshada ku dhaqan dhulkii uu haystay iyo heshiis u bilaaban doona daraawiishta iyo talyaaniga. ingiriiska waxay dantiisu ahayd inuu dalka soomaaliya u taliyo, dadka degganna gumaysto, dantiisa siyaasadeedna ka fushado, dhaqaalahana ka boobo, wixii ujeeddadiisa ka horjoogsadana araxda qabto. ha yeeshe ee dagaalkii daraawiishtu markuu qarxay, ingiriisku si weyn buu u walwalay. wuxuu ku dadaalay inuu daraawiish xooggiisa isugu geeyo, magaceeda dambena aan la maqal, wadaadkana la gubo. hase ahaatee ee taasi waa ay suuroobi weyday. qorayaasha ingiriiska qaarkood oo aan looga baran xaqiiqda waxay sheegeen in goob kasta ciidamada ingiriisku guul ay ka gaarayeen xilli taliyaashii ciidamada ay qirayaan wixii ku dhacay. haddaba aan isweydiinne guusha uu ingiriisku heli lahaa waa maxay? waxay ahaan lahayd sidaannu horay u soo xusnay laba midkood. waa midda koowaade in wadaadka gacanta lagu dhigo, iyo tan labaad oo ah in ciidamadiisa la kala eriyo. labadiina midna ma dhicin. haddii hadalkaasi run yahay, maxaa dagaalka 20 sano gaarsiiyey? ugu dambayntiina maxaa ku kallifay inay dayuurada kula dagaalamaan? runtu waxay ahayd in goob kasta ciidamada ingiriiska guuldarro iyo gacmo maran kala laabanayeen. inkastoo ingiriisku niyajab soo wajahay, haddana dhanka kale waxa uu gumaysi daran ku hayay dhulkii uu xoogga ku haystay sida berbera. heer ay arrintu gaartay inuu soo saaro amarro ah inaan la dili karin masaska, abeesooyinka, libaaxa iyo waraabaha oo uu ku sheegay inay yihiin hanti dowladeed. ciddii dishana wuxuu ganaax uga dhigay inay hanti bixiso. gabay aan qeybaha soo socda ka soo qaadan doonno ayaa waxaa ku jira erayo uu arrintan ku cabirayo sayidka, waxaana ka mid ah: mawaacidada diinkii ma wax laysku maagaa? jihaad mooshinkii galay ma wax laga maqnaadaa? mushaharada beenihii ma wax lagu mannaagaa? laxodkii madoobaa ma laysmoogadeeyaa? muufada cadaabeed ma u adkaysanaysaan? gaal nin u madiidimay maqaam naar inuu tegi? kutubtaa u maragee ma wax lagu murmaabaa? mushrik inaad jeclaataan amaad mudan ku sheegtaan? haddaydan mujrim ahayn ma nas baad u haysaan? masalogaabyadiinnaa meel daran idin dhigay. muftiga waanadiisii idinkaa ka maagto, macbuudkii rabbi ahaa idinkaaba moogo. maxsharkii qiyaamaha idinkaa munkirayo, makfiradii ilaahay idinkaa ka maarmo. macaankii firdowsana idinkaa muraysto, muuminnimada laabtaa idinkaa mantagayo. minadiinna gaalowday idinkaa muqunsho, kufriga imahoobiyey idinkou maciino. makaankii shareecada idinkaa matamiyo, muslinkiiyo qusuusida idinkaa makalayo. maalkii agoomeed idinkaa malhabayo, masxafkiiyo qur'aankii idinkaa maljadayo. wax samowtigiin galay ama malagidiin yimi markaad maxamedkiinnii malcuun uray ka raacdeen. mariyo macneeyaye mid kaleeta wuxuu yahay: waxaan maqallay faranjigu inuu miiri idin qoray. waxaan maqallay ooryaha midtan inaad ka weydeen, aan miis yar mooyee maydho geel la siinayn. waxaan maqallay maahayahow magaciin inuu ba'ay. intaasoo musiibaa waxaa igala maad badan maska iyo abeesada magta aad ka bixiseen, aanad midigta fidinayn aar hadduu ku miciyeyn. haddaba erayadan iyo qisada waxaa sii yara iftiiminaya awjaamac cumar ciise.
taa waxaan weydiiyey darwiishkii qoray gabaga aan ka soo guuriyey wuxuu yidhi magaalada berbera ceelal baa magaalada ku xeeran ceelashaa masas baa jooga nin baadiye ka yimi ayaa masaskii mid ka mida dilay faranjigii baa loo sheegay waxaa la yidhi ninkaasu dembigaasuu ka galay faranjigii wuxuu yidhi maxaa lagaga nabadgeli karaa waa in allabari la bixiyaa oo qurbaan loo dhigaa maskii ninkii 2 rubood xaaji jaamac ismaaciil wuxuu yidhi 2 rubood laakiin cabdi warsame oo gabaga markii dambe wax ku daray cabdi dheere wuxuu yidhi rubad baa ninka laga qaaday adigu ninkii wax laga qaad wixii baa shaah loogu kariyey oo qurbaan loogu dubay hadalkii baa daraawiish la geeyey amar gaalku soo saaray wuxuu uga dhahlaynina dhulwaaga iyo libaaxana ha taabanina libaaxna nin soomaaliya meelu joogo aamini maayo libaax wax la aamini karo maaha sayidkii markii loo sheegay maska iyo amarka la soo saaray libaaxa iyo waxaa dilina halkaasuu gabagii ka abbaaray intaasoo masiibaa waxa igala maad badan maska iyo abeesada magta aad ka bixiseen aanad midigta fidanayn hadduu aad ku bixiyeyn في بحار الذل هادر أي حزن أمتي بل أي دمع في المآقي أي أشجان تشاطر أمتي يا ويح قلبي 4 sano iyo dheeraad haddii gumaysiga ingiriisku ku dadaalayay in uu dhaqdhaqaaqa daraawiishta xoog iyo xabad ku maqooniyo hase ahaatee ee taasi suuragal noqon weyday waxaa ingiriiska iyo talyaanigu isla garteen bal in dagaalkii kululaa loo weeciyo dagaal qabow oo la isku dayo wax is-afgarad ah ama heshiis ah in daraawiish laga helo dabadeedna gumaystihii kale ee talyaaniga ayaa loo tala saaray inuu isku dayo wax wadahadal ah inuu la yeelan karayo sheekha si uu uga dhaadhiciyo in wadahadal heshiis nabadeed ku saabsan la isugu yimaado waxaana dowladda talyaanigu ahayd dowladda ugu rabitaanka badan in uu meel maro heshiiskan sababtoo ah waxay ilaashanaysay masaalix iyada u gaar ah oo haddii heshiis ay la gaarto daraawiishta aan wax dhib ah soo gaari doonin sida in awooddeeda ay ku faafiso magaalooyinka dhaca koonfurta ee istaraatiijiga ah sida muqdisho baraawe marko afgooye balcad iyo kuwa la midka ah waxayna doonaysay inay maquuniso qaar ka mid ah qabaa'ilka Soomaaliyeed oo ka soo horjeeday gumaysigeeda sida Biyamaal iyo kuwa kale waxaana Talyaaniga uu ka baqayay inay isku xirmaan qabaa'ilkaas iyo daraawiishta dabcanna way wada shaqeynayeen sida aan arki doono insha Allah waxaa sidoo kale jiray qabaa'ilkii Soomaaliyeed ee degi jiray Luuq iyo Cadal oo iyagu Talyaaniga ka diiday olole hubka dhigis ah oo uu ka waday geyiga dabinkaas oo qabaa'il badanna ay ugu dhaceen qabaa'ilkan aan hubka dhigin ayaa waxay Talyaaniga u arkayeen gumaysi waxayna u sheegeen inay iska dhicinayaan hadduu dhulkooda yimaado intaa waxa dheeraa in gobolada mudug iyo deegaano badan oo u dhow aysan si rasmi ah u hoos imaan jirin Talyaaniga arrimahaas iyo kuwo kaloo badan darteed ayuu gumaystaha Talyaaniga u sacyinayay in heshiis buuxa uu la gaaro daraawiishta waxaase adkaatay sidii nin caddaan ah ama reer Yurub ah uu xarunta ku tegi lahaa ama sayid maxamed u arki lahaa maxaa yeelay koodii is yiraahdaa daraawiish u tag waa inuu kafantiisa garabka midig ku sii qaataa hase ahaatee ee Cabdalla Shixri oo markaa ahaa ergeyga gaarka ah ee daraawiishta sayidkana aad ugu kalsoonaa ayaa qunsulkii Talyaaniga cadan u joogay u tagay dabadeedna wada hadallaa dhex maray waxaana qunsulkii Cabdalla Shixri weydiistay in uu sayid maxamed waraaq ka gaarsiiyo daraawiishtu ma aanay jeclayn mar hadday xabashida iyo ingiriiska dagaal kula jiraan inay furin saddexaad isku furaan arrintan oo ah mid u quduucaysa siyaasadda sharciga sidaa darteed Cabdalla Shixri waxa uu ogolaaday inuu warqadii qaado albaabkuse waa uu xirnaa hase ahaatee ee warqadaas ayaa fure u noqotay wada hadalkii dhex maray Talyaaniga iyo daraawiishta mar labaad ayaa xaaji Cabdalla Shixri qunsulkii Talyaaniga cadan kula kulmay hadday wada hadleen si fiicanna u sheekaysteen Talyaanigu waxa uu cadeeyay inay doonayaan in heshiis nabadeed dhex maro Talyaaniga ingiriiska xabashida iyo dadka kala raacsan ee dabadhilifyada ah iyo mujaahidiinta daraawiishta Cabdalla Shixri arrintaa waa uu u guuxay
hase ahaate ee wuxuu talyaaniga weydiistay in erge lagu daro si sayidka hortiisa hadalkaasi looga jeediyo taasna talyaanigu waa oggolaaday waxaana lagu daray markab dagaal iyo ninkii watay oo magaciisa la ohan jiray balati baroni dardaarankuna wuxuu ahaa inaan ninka talyaaniga ahi markabka ka degin oo cabdalla shixri waraaqaha iyo fariimaha u kala qaado sayid maxamed iyo balati cabdalla shixri sidii loo qorsheeyey buu u fuliyey arrintii dhinaca sayidka iyo dhinaca talyaanigaba ugu dambayntiina waxaa laysla gartay in talyaanigu nin erge ah daraawiish u soo diro si arrinta halkaasi loogaga wada hadlo waxa talyaanigu wadana loo ogaado maxaa yeelay had iyo jeer daraawiishta dareen weyn baa gaalada kaga jiray xaaji cabdalla shixrina markabkiibuu cadan kula noqday si uu arrinta ula socdo bishii janaayo ee 1904 ayaa cabdalla shixri xaruntii ku soo noqday markuu sayidka iyo daraawiishta u warramay oo uu u sheegay waxa talyaanigu doonayo sayidkii ayaa waxa uu yidhi waxaa habboon inaan xeeladooda ogaano intaysan noo imaanin isla markaas sayidku waxa uu gartay in cabdalla shixri noqdo oo u tago qunsulka talyaaniga cadan u fadhiya oo ujeeddadooda iyo xeeladay wadaan aad u soo tabbaaso una soo oggolaado heshiiska ay doonayaan waxa uu ku saabsan yahay iyo waxay uga dan leeyihiin xaaji cabdalla markuu cadan tegay waxay is arkeen qunsulkii talyaaniga wuxuuna u caddeeyey inay doonayaan in la suurageliyo heshiis nabadeed oo ay ka qayb galaan ingiriiska talyaaniga xabashi iyo labada boqor cismaan maxamuud yuusuf iyo yuusuf cali kenediid si kastaba arrintu ha u socotee taliya bestelose ayaa talyaaniga u gartay inuu naftiisa biimogeliyo oo isku dayo bal inuu wadaadka wax wada hadal ah la yeelan karo run ahaantana colaadda ingiriiska iyo daraawiishta ka dhex taagnayd meeshay gaartay ma gaarin xagga talyaaniga gaala necbaan mooye daraawiishta iyo talyaaniga dagaal marnaba ma dhex marin bishii agosto ee 1904 ayaa bestelose ka soo ambabaxay dhulka talyaanigu gumaysanayay oo u soo kacay cadan dabadeedna wuxuu tegay boosaaso si uu u sahmiyo waddaduu sheeqa u mari lahaa isla sanadka 1904 bishii sebtembar 12keedii ayaa bestelose warqad ka diray bandar qaasim oo haatan loo yaqaano boosaaso waa fariin ay ku muujiyeen dabacsanaan iyo inay ixtiraam weyn u hayaan sayidka isagoo sayidka weydiisanaya inuu ilig kula kulmo 25 maalmood kadib warqadiina waa tan bismillaahi araxmaani araxiim mahad allah keliya iska leh waxay ku socotaa sareeye mudana sheekh maxamed bin cabdalle ilaahay caafimaadkiisa iyo horukaciisa ha dhowre waxaan ilaahay idinkaga baryayaa inaad horukac iyo nabad ku waartaan annaguna waan ladannahay nabadgelyo waan qabnaa ilaahay baanuna had iyo goor u mahad celinaynaa waxaan arladan u imid iyadoo ay soo dirtay dowladda xoogga weyn ee talyaaniga inaan eego nabadda xasiloonaanta iyo ammaanka dalka soomaaliyeed ilaahay danteena hayna waafajiyo iyadoo ujeeddadeennu xaq tahay kana timid qalbi wanaagsan dalka oo dhan ha ugu deeqo nabad iyo xasiloonaan intaas kadib warqadii aad u dirtay dowladda talyaaniga muddo 4 bilood ah ka hor waxaa ka muuqatay ujeeddadaadii iyo tayda qasdiga wanaagsan waxaa lagu muujiyaa ficil wanaagsan haddii markaas qasdigiinu yahay oo aad tihiin runtii kuba u diyaar ah inaad dagaalka joojisaan idinku kitaabka muqadaska ah degdeg iisoo gaarsiiya iina soo dira qof aad aamintaan oo niyad suuban oo waxgarad ah oo wixii muraadkaaga ah aniga iyo isagu tala aan isdhaafsanno iyo ra'yiba anna hoos dhigo dowladda talyaaniga oo aynu iyaduna ka heli doonay jawaabta ilaahay baa ka marag ah niyadeenna xaqa ah ilaahay ballankiisana haynoo dhexeeyo annaga iyo ergadiina halkan waxaa ila jooga suubani cabdulaahi shiixirigiini waanu inala shaqayn doonaa intaasaan ku soo ogeysiiyey ilaahay baana naxariis leh dhaqsi iigu soo jawaab idinkoo usoo diraya kaad aamintaan ilig waana inuu halkaas joogaa 25 maalmood gudahooda oo ka bilaabata taariikhdan aniguna waxaa liiga heli doonaa ilig waxaan ku sugi doonaa markabka oogadiisa axdiga iyo ballanka ilaahay baa inoo dhexeeya qaadirku haydin dhooro waxaa laga soo qoray bandar qaasim maalintii isniinta 2 bisha rajab 1322 ka timid lagu kalsoonihii dowladda talyaaniga bestelose
sayidku si deg deg ah uguma jawaabin talyaaniga waayo waxa uu qiimeynayay xaaladda sidoo kale wuxuu arrinta kala tashanayay raggii qusuusida ahaa ee ka midka ahaa hoggaanka daraawiishta balse 2 toddobaad kadib ayay jawaabtiisii gaartay bastalose waxaana uu ku yidhi waraaqdaadii waan helay aad noogu sheegaysay inay dowladdaada talyaanigu wakiil kaaga soo dhigatay inaad hadallo nala yeelato sidaas darteed codsashadaadii aad tiri ilig aan ku kulanno waan oggolaanay kulankeenuna wuxuu ahaan doonaa hadduu eebbe idmo 6 bisha Shacbaan hana ku soo raaco Cabdulla Shixiri iyo ninkii kale oo aad doonayso Ingiriis ma ahee bishii Oktoobar 15keedii 1904 ayaa xeebta ilig daldala waxaa soo dhigtay markab Talyaani ah oo sida Bastalose habeenkaasna waxay baryeen markabka dushiisa maalintii hore ayaa sayidka meel walba fardo u diray oo waxa uu amar ku bixiyay in birri xoog loo soo shiro subaxdii baa waxaa la keenay 2,000 iyo dheeraad fardo ah oo faras walbaahi uu ku joogo darwiish hubaysan oo indho libaax leh fardahana intii isku midab ahba waa la isxigsiiyey haybadda iyo buruudka iyo quruxda ka muuqatana lala yaabo kitaabka thaa'irku waxa uu qorayaa in wadarta ciidamada dowlatuska sameeyey ay gaarayeen 50,000 oo askari taas sayidku wuxuu uga jeeday inuu beeniyo war aan raad lahayn oo ingiriisku faafiyey taa beddelkeedana uu ergada talyaaniga tuso xoogooda iyo niyaddooda maxaa yeelay ingiriisku wuxuu ahaa dowlad gabowday oo gumaysiga tabihiisa aad u taqaan wuxuuna hanka ku hayay goor ay noqotoba in xoogga daraawiishtu hoos u dhici doono dad xujoobay oo xarunta ka tegayna waxay uga warrameen sheekha agtiisa waa laga kala tegay oo ciidan badan ma haysto waana sida ay maanta ku hadaaqaan dadka xujooba ee gumaystaha u goosta ingiriiskii ayaa faafiyey wadaadkii iyo wuxuu watay waanu kala erinay talyaaniga qudhiisa wuxuu maskaxda ku hayay bal inuu ogaado oo hubsado xarunta daraawiishta xoogga joogaa intuu la eg yahay iyo waxa ingiriisku sheegayo waxa ka jira balse muxuu arkay 2 sano ayaa la daba socday si wadaadka heshiis loola gaari lahaa Bastalose waa soo kacayo markab buu soo raacayo ilig buu soo dhigtay sayidkuna ilig buu tegey ilig 2 buurood dhexdood baa daarta laga dhisay daartu badday ku jeedaa markii hore sayidka iyo ragiisu waxay fadhiyeen daarta ayl ee daawad oo markaa la dhameeyey marka daartii waa ka soo wareegay oo wuxuu yimi ilig badday u jeedaa 2 buurood dhexdood ayay ka dhisan tahay bannaan yar baa horteeda laga sameeyey fardaha iyo maaragtay muxuu ahaye lagu xiro dusha korena waxa ka xiga buur labada dhinacna waxa ka xiga 2 jeex oo maaragtay muxuu ahaye wax laga ilaalin karo Bastalose waa soo degay warqad baa loo diray waxa la yiri berrito saacadu markay inta tahay inow meel walbana gaar baa la dhigay rag ninka kan wuxuu wada lama yaqaan waxa la oran jiray gaalku sunbu wadaayo oo dadka siinaya oo sun biyo sun wata iyo bilaayo kale tu wata marka xeebta markuu ka soo degay nimankii xeebta ugu tagay meeshu waa meel ciriiriya aad iyo aad bixaalkiisa u eegeen anigu oran kari maayo jeebabkiisa ay gacmaha geliyo sida hadda dadka loo baaro way u baareen garan kari maayo taa wixii sheegana ma arag laakiin il bay ku hayeen si fiican bay u ilaalinayeen ninka kan socodkiisa iyo saantiisa iyo hadalkiisa marka daartii iligeed baa la keenay banaanku istaagay gudaha waxa ku jira ugu yaraan 60 nin oo aan ninka laga garan karin nin waliba labiskiisa iyo quruxdiisa iyo faraskiisa saaran yahay kolku meeshii soo galay oo fardihii iyo haybadii iyo wuxuu arkay xaqada bawdihu soo dhacay waxa meesha ka muuqanaya quruxda iyo ragga haybadiisa iyo qoryaha ku foorara iyo aad buu u cabsaday 2 nin oo kale tan waa la socotaa 2 nin waa turjubaan ninna waa nin gaala oo la socdo isaga ilaaliya maaqa wuxuu ahaay warqadaha u sida Bastalose carabiga wax yar buu ka yaqiin laakiin turjubaan baa la socda haddaba inta aanan sii ambaqaadin sayidka iyo Bastalose waxa dhex maray ayaa waxaa in si gaar ah loo eego mudan gaadiidkii daraawiishta ah oo fardo u badnaa daraawiish iyaga oo dagaal caalami ah ku jira ayay gobollada waddanka isaga kala gooshayeen gaadiidkooduna wuxuu ahaa fardo iyo awr intaa waxa dheer isgaarsiini ma jirin aan ka ahayn in waraaqo la isku diro
waxaana arrintan milicsanaya sheekh suldaan. waxay ugu suurto gashay dee waxay raacayeen gaadiid awr ah, waxay raacayeen gaadiid farda ah bay raacayeen oo la tababaray. isgaarsiintooduna kuwaasun bay ahaydo dee nin baa la diri jiray ama lugeynaya ama farasa fuulay baa la diri jiray oo adeentida sida oo gaarsiiyo meeshii loogu talagalay oo gudana kara risaalada oo fahmi kara sida wax loo guto oo sida dadka fariinta loo gaarsiiyo garan kara. hadday fariin dhiila tahay, hadday fariin farxadeed iyo bushaaro tahay, hadday fariin ka kaca iyo istinfaara tahay, marba nooca fariintu tahay. ninka qaadi yaqaana waa la yaqaanay, adkaysiga ule socodka dheer iyo jiidaasha u gelayo waa la qay. waxaa kaloo mataqaanaa maarta u suurto gelinaya farda ay tababarteen ayay wateenoo faraska haddaad tababarato iyo awrta aad tababarato waxay leeyihiin maraaxil ay marayaan. kadibna qaabkaad u fuuli lahayd baad garanaysaa iyo saad u gaajaysiin lahayd. waxaa la yidhahdaa faraska marka hore waxay siin jireen raashin ku filan oo cawskiisii wixiis meelaha daaqsinta iyo dixida leh baa la geen jiray. xagga korena mataqaana waa laga ilaalin jiray wuxuu jecel yahay ama timir ha la siiyo ama subag ha lagu shubo awooddiisii ku dadaali jiray. awoodda marka lagu dadaala kadibna mataqaanaa qolladaa la gelin jiray beerlaab si u noqdo haddana cuntadii baa laga soomin jiray si uu abaaraha iyo jiidaasha dheer iyo socodka iyo orodka iyo uu maaragtay. waxaa la beri jiray orodka. tusaale haddaan soo qaadano orodkiisa dhulka aad ku marayso faraska waxaa lagu fuulaa kadlaha ayaa jiidaasha dheer lagu socda. faraska inaad eriso dhabaabacayso oo maaragtay laguma socdo. waxaa lagu socdaa mataqaana kadlaha. marka kadluhu mataqaana waa kan lugaha uu dhulku garaacaya. waxaa kaloo lagu socdaa koosaha oo kadlaha ku xiga. koose baa la yidhahdaa kadluhu ku xiga. waxaa kaloo lagu socdaa hardaf qaarqaad ah oo orodkii aan ahayn baa lagu socdaa, orodkii dheer ahayn oo qaarqaad ah. dee xawda iyo mataqaana baa ku xigta kadibna maaragtay oo saas u sii ordaya. marka u horeysa waxaa la sameeyaa aad faraska fuusho. faraska waa la eriyaa. markaad erido farasku mataqaana wuu dhididayaa. marka koora kugu xidhan badanaa kooray lahaayeen. ninkaan koora lahayna badhadhowr wax lahadu saaran jiray. faraska waa la eriyaa. marka la eriyo dhidid baa ka soo baxaya. dhididku markuu ka soo baxo faraska ma sii deynayside waad eriyeysaa haddana. dhididka haddana wuu soo badanaya. mar labaadka markuu ka soo baxo waxaad moodaysaa in dhidid dhooba ah uu ka soo baxay ayaad u malaynaysa. wax dhooba oo kaleeta ay ka soo baxeen baad u malaynaysaa. dhoobadaas markaad dareento waxaa la yeela faraska waa la joojiya. markaad joojiso wagaradkii ama xariggii caloosha ugu xidhaa ayaa dabcaya. xariggaas markuu dabco ayaad sugaysaa wuu kaadjayaa wuu mataqaana futuuranaya. fudka waxaa la yihahdaa saalada mataqaana ay saaloodaan dameeraha iyo farduhu baa fud la yihahdaa iyo bahasha la yihahdo baqasha iyo fud baa la yihahdaa. ee uu si fiican u kaadjo ayaa wagaradka u geejinaysaa. xariggii baad caloosha ka dabcay baad dib u xidhaysaa u adkaynaysa. markaad adkaysaad ku dulaalaysaa ku boodaysa. hadda wixii ka dambeeya celcelis buu noqonayaa xakamaha ama xarigga mataqaana maarata maxay wafdigaha la yidhaahdo ee lagu hayo baad ku soo haynaysaa. marka waxaad bilaabaysaa inaad ama koose ama kadla ku socoto. farduhu markay badan yihiin way isweheshanayaan oo si fiican bay isu heshanayaan. taasaa marka u sahlaysa inay jiidaal dheer ku maraan 30 kilomitir 40 kilomitir 100 kilomitir ay ku maraan dhulka ku maraan. awrtana saasaa loo tababartaa iyagana loo bara. saasaa jiidaasha u siyaadinaysay oo socodka dheer ay ku maraayeen dee way tababareen. awrtana way tababareen, fardahana way tababarteen. waxaa kuu soo hadhay dadka telefoonka haysta iyo hadda siday u isticmaalayaan. telefoonku mataqaana waa mindi laba af leh, marna adaa wax ku saraaya marna iyadaa ku saraysa. xagga mataqaana isticmaalka waa dheg furan oo kula tala oo basaas aad gacanta ku wadato. markaad hadashaba dee hawadu gelinaya waxaad ku hadashay iyo waxaad dadka ka horeysatay iyo wararkaad raadinaysa oo dhan hawadu gelinaya. taasna waxa weeye mataqaana qof kastoo macluumaad u baahan macluumaad buu kala baxaya. dadka yaqaana sida loo baadhaa macluumaad bay kala baxayaan. waxaa kale ku noqday hadda telefoonku noqday shay cadowga oo mataqaana haddii lagaa helo loogu dilay. saa darteed waxaa fiican inaad ka koobsan karto ama ka gaabsan karto inaad ka gaabsato oo farahaad ka qaado waa looga baahan yahay. in la iska ilaasho waa shay muhiima oo qofka muslimka ah wixii naftiisa mataqaana dhibaato ku keenaya ama mudaro ku keenaya inuu iska ilaasho waa loo baahan yahay. سل التاريخ يعطيك الجواب ويفتح من قصور المجد بابا عن الإسلام عن حكم بعدل ومجد ساق للنصر الركابا وعن خلق رفيع لا يضاهى وعن من يرتجي فيه الثوابا بطولات تسطر كيف كانوا أسودا يعتلوا الصرح المهابا. dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa qaybta 13aad ee barnaamijka halgankii daraawiishta. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. قصور المجد بابا عن الإسلام عن حكم بعدل
ومجد ساق للنصر الركابا. على وجه الثرى أرسوا أساسا يعانق من معاليه السحابا، ليبقى للمدى ومضات ماجد من التاريخ قد بلغ النصابا، ليبقى للمدى ومضات ماجد من التاريخ قد بلغ النصابا.